marka hore waxaan halkan salaamaya mas'uuliyiinta halkan isugu timid xafladan munaasabadan xil wareejinta waxaan ku bogaadinayaa mas'uuliyiinta xilka la wareegaya waxaan kaloo iyagana ku sii sugooteynaa mas'uuliyiinta kale ee iyaguna xilka lagala wareegayo iyaguna halkan horumarka si qaadayo u wareegaya position kaleeto iyagana waa u duceeynaa anoo laba kalmood ka idhaahdo labada nin ee مسؤوليين تياكل حتى اللي وريقية ولا بدو وصف عنه عنه أحمد أبو بكر يخضر على كله خضر على كله مركي يوهر يسمى عيسى على الموضوع واحد الله بكون يشنتي حج كأيام شو مركني يرى ولا يرى ولا قاري ولا صار أي تلفون مدراء ومركها حوجه هذا مشين كان ما توقفت عربتها marka suubil waa khadar caguli Sacuudiga maxay u sabab horta markaas aniga igu horeysay magaciisa markaas waa khadar caguli aan sheegaysaa waay markaas uu war ninka codka ku duuban ku yiri Soomaaliland la yiraahdo fadlan telefoon waa mashquul iyo ninka ilaal ma horta markaas aniga igu horeysay ninka magaciisa aan maqlaba barigi dambe dalka ayaan imid marka khadar caguli aan isbarana shakhsiyan sa sheekadu uga sheekay isla sheekooyin kale ila wadaagayo arrimaha ku saabsan خضر واحد عينيا وأنا كرتله وأنا نهو وأنا كسر بحكرين آديات كنت أنا كسولي حتى أفهم فوقه سيدو كله أحمد أبو بكر إنجنير أحمد أبو بكر وأنا يرد عن دلكو مرتين تي عن مرتين عن بربشوق هاي أنا دلكو سوري وأنا يرد تعلمت كون أحسن حنا يعني مرت حلي جيسيو ولا كلمت كواد وقال دلك ما كلامه وقال وأنا أبويها لو رحتي هذا كسر شيء وأنا ما أنا هو administration كي وأنا أكسنا وكسر برتي هيدو يسوي شيء عالم يسوي شيء إنه هالكن ما أعرف يد لفت كده ولا ولا بدونه كنت أنا وأنا بكرة صانع إنه واحد بدل كورنتو وزارة ورفافينتو ووزارة طلعنا هالكنا وزير كينيو وزير هذا كله هالكين شغله كله والسلام هي وحنا هو وزارة ورفافينتو كلام وين بكتاعته maartay way gelinta dalka waxaana anigu aan halka ku talinayaa in barnaamijyo dhalinyarada lagu dhiirigelinayo oo dadka lagu wacyigelinayo oo in la sameeyo waxaan xasuustaa bedel dawladdiisa aad baray markaa dhalinyarada ahaa wasaaraddaas budget xoog leh ay yeelan jirtay lahaan jirtay aad baa xoog loo saari jiray wacyigelinta iyo hooga tusaaleynta bulshada hadday noqoto dhinac walba dhinaca beeraha waxbarashada kalluumaysiga iminka waynagana abaariga ku jirna hadaan abaariga ku jirno waxaan u baahanahay abaartaasna walba day way nagu dhacdaay oo runtii waa waxa aynu ognahay waxyaalaha ugu waaweyn ka faa'iideysan karayna waxa kamid ah in dadka xagga kalluumaysiga iyo markuu roobku doo sidii daam loo sameyn lahaa oo biyaha loo keydin lahaa dadka maartay lagu wacyigelin lahaa marka wasaaraddan intee waxa weeye wasaarad runtii ballaaran anigu waxaan ku talin lahaa budgetkana loo kordhiyo tayadeedana la tayeeyo oo aan iska tiro u noqon la tayeeyo wax soo saarkeedana lagu xisaabtamo television qarankana waxaan rajeynayaa kooxdu khadar cad imanka qabsaday kulli aniga waa laga soo dayn doonaa waan malanaya kowr wali maayo assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh جمال الحسين aad u mahadsan yahay waxaan filayaa aynaad malaa markii hore xagga xisbiyada marka la eego xisbiyiin kala warbaahinta kuma badnayn laakiin imanka haddii aan la yidhaahdo waa guusad buri doonaa jamaal insha allah daala kaliyo waxaan doonayaa inaan mas-uuliyiinta kale ee halkan fadhida xagga kalluumaysiga waa kan soo hadal qaaday jamaal cali xuseen wasiir ku-xigeenkii wasaaraddaas cabdiraxmaan ismaaciil iyo agaasimuhu kuwa inala fadhiyaan markaa kulli iyagana aan erey siiya haddii aan la yidhaahdo بسم الله الرحمن الرحيم